Halkan waa wadada laga galo magaalada Marka ee xarunta gobolkan Shabeellada Hoose. Safar kooban oo aan ku imaaday magaaladan ayaa ujeedkeedu waxa uu ahaa u kuurgelidda xaaladda guud ee magaaladan Marka ee gobolka Shabeellada Hoose, maadaama sanadihii u dambeeyay magaaladu ay ka dhacayeen dagaallo dhowr waji ah, taas oo saameysay nolosha dad badan oo ku sugnaa halkan, isla markaana sababtay inay burburto bilicdii xarunta Marka lagu garan jiray. Intaa kadib ayaa waxa ay suurto gashay in aanu mid mid u booqdo goobaha muhiimka u ah magaalada Marka ee markaasi qadiimiga ah. Waxaana la ii sheegay in intaan ku sugnaa magaaladan in dib ay ugu soo laabteen dadkii horey kaga cararay dagaaladii ka dhacayay halkan awooda, balse maamulka Marka oo sheegay in ay haatan dadku ugu baaqayaan in dib ay ugu soo laabtaan ayaa xaqiijiyay in dad badan ay dib ugu soo laabteen maadaama xal laga gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka, gaar ahaan magaaladan. Bilicda magaalada ayaa si tartiib tartiib ah loo dareemayaa inay u soo laabanayso. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda guud Marka ayaa iminka mid degan. Cabdi Fataax Cali Cumar Tawakal, Tayo TV 24, magaalada Marka.